marka aad dhex mushaaxayso wadooyinka waaweyn ee Mareykanka waxa ay indhahaagu qabanayaan dad cadaan u badan iyo in yar oo madow oo ka soo hayaantay busaaradda Afrika iyo Asia balse ma ogtahay dadka u dhashay dhulkan Mareykanka ee asal ahaan ka soo jeeda in ay yihiin dad madow ah. Warbixintan ayaan ku eegi doonaa sidee dhulkan Mareykanka looga musaafuriyay dadkii u dhashay ee madowga ahaa ama Native Americans iyo sida loogu beeray dadka cadaanka ah ee hadda ku nool. Muuqaalkana sii faafi. Dalka Mareykanka guud ahaan dunida waa dalka ugu horeeya dhaqaalaha, awoodda iyo xataa tiknoolajiyadda casriga ah, laakiin ma aha wadan leh taariikh fog iyo xadaarad qarniyo soo jirtay. Marka laga hadlayo taariikhda dalka Mareykanka waxa waajib ah in la xuso dadkii deganaa kumanaan sano ee hadda dibadjooga ka ah. Waa dadka loo yaqaan Indians oo ah Native Americans ama dadka dhaladka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka. Dadkan waa dadkii deganaa ciidda Mareykanka 20,000 ee sano ee la soo dhaafay. Kalarka jirkoodu waa madow iyo madow xigeen ama waxa loo yaqaan marine, waxaana loo tiriyaa in ay ku abtirsadaan bulshada bariga Asia. Si kastaba ha ahaatee, dadkan oo loo yaqaan Indians ayaa la aaminsan yahay in ay dhab ahaantii ay yihiin dadka asalka ah ee u dhashay Mareykanka isla markaana leh ciidda Mareykanka. Laakiin wax kasta waxa ay isbedeleen qarnigii 15aad. Qarnigaasi waa kolkii uu dunida isku balaariyay gumaystaha reer Yurub. Mareykankuna waxa uu gacanta u galay dalka Ingiriiska. Halkan waa barta ay iska bedeshay taariikhda. Ingiriisku waxa uu bilaabay in uu masaafuriyo oo uu si qasab ah u raro dadkii asalka ahaa ee ku noolaa Mareykanka. Waa dadkii loo yaqaanay Indians. Taasi bedelkeeda waxa uu u soo raray dhulka Mareykanka dad cadaan ah oo uu ka keenay dalalka Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska. Markaas wixii ka dambeeyay waxa la baabi'iyay taariikhda dadkii deganaa ee u dhashay Mareykanka, dadkii ahaa Native Americans ee xuduntoodu ay ku aasneed carada Mareykanka iyo dhaqankii qadiimka ahaa ee dadkaasi. Hase yeeshee, ilaa iyo haatan qaar badan oo ka mid ah faracii dadka Indians ayaa ku nool Mareykanka, kuwaasi oo haysta dhaqankii asalka ahaa iyo luqadoodii qadiimka ahayd. Waxay ku nool yihiin gobolada California, Virginia, Alaska, Oklahoma, Arizona, New Mexico iyo Texas. Iyaga oo qaba dharkooda gaarka ah ee dhaqanka ayaad ku arki kartaa goboladan, inkasta oo aysan badnayn tirada Mareykanka joogta imika. Bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii share gare.